kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa kanaalka qalbi Soomaali TV waxaan idin haynaa war degdeg ah oo ku saabsan fanaanka caanka ee Soomaaliyeed ee Khadarkeeyo loo yaqaan oo la xiray laakiin waxaad isweydiinaysaa halkee ayaa lagu xiray yaa se xiray maxaa se loo xiray faahfaahinta warkan oo dhameystiran isla muuqaalkan ayaad ku daawan doontaa laakiin haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad soo booqato kanaalka qalbi Soomaali TV si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka iyo barnaamijyo xiiso badan fadlan taabo calaamadda subscribe-ka kadibna jalaska ama gambaleelka taabo inta kadibna wararkii ugu dambeeyay ee ugu xiisaha badnaa ayaad helaysaa ugu horeyn daawadayaal fanaanka Soomaaliyeed ee loo yaqaan Khadarkeeyo oo ah fanaan Soomaalidu aad u jeceshahay gaar ahaan dhalinyaradu wuxuu maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Hargeysa halkaas oo uu joogay dana isaga u gaara laakiin shalay toole ayuu u socdaalay dhinaca dalka Itoobiya gaar ahaan caasimadda dalkaas ee Addis Ababa halkaas oo la sheegay in lagu xiray laakiin daawadayaal ilaa hadda ma jirto cid garanaysa sababta rasmiga ee loo xiray fanaankan walow ay jiraan warar aan lagu kalsoonaan karin oo dadku isla dhex marayaan balse fanaanka kale ee loo yaqaan Cabdi Dhaanto ayaa ka mid ah dadka shaaciyay in fanaanka Khadarkeeyo lagu xiray caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa sidaas oo tahay fanaanka loo yaqaan Cabdi Dhaanto waxa uu sheegay in laanta socdaalka Itoobiya ay fanaankan ku dhigtay isagoo ka gaabsaday inuu sheego sababta rasmiga ee fanaanka loo xiray taasoo yiri anigu ilaa hadda ma xaqiijin karo sidoo kalena daawadayaal fanaanka loo yaqaan Cabdi Dhaanto oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay oo uu yiri fanaanka loo yaqaan Khadarkeeyo waxa lagu xiray madaarka magaalada Addis Ababa kadibna waxa loo qaaday mid ka mid ah xabsiyada magaaladaas ku yaala haddaba daawadayaal ilaa hadda ma jirto cid rasmi ah oo soo aragtay xaaladda uu ku sugan yahay fanaanka Khadarkeeyo laakiin wixii war ee soo kordha waxaad kala socon doontaan kanaalka qalbi Soomaali TV